asxaabta jilinkan ila arka oo la foole iyo ismahaan ay sameynayaan filimka Habboon season 2 giisa waa qaab cajiib ah riyo yar oo wuxuu galaa asoo wada ducaale la fadhiyo la foole riyo yar oo asoo ismahaan guursanay ayuu galaa si cajiib ahna u jilayaan labadooda saddexdoodaba jilinkooda caadi ma ah qaabka ismahaan ay u sameynaysa xataa kooda hore markay saas u soo baxdo la foolo wuu arkaa saas oo u fiirina kiyalku saas iska leeyahay kadibna reediyo guda gala ayadana isla markii reaction ay sameynay toorto afku gelinay wada ducaale ayuu qara afku gelinay marka qaybtan reaction kan cajiib waaye horta qaybtan yar si fiican loo habeeyay fanis yarna wuu leeyahay riyo yar ku lacagtii doorashooyinka kaga dhacay meeqay jecel yarna ku jira waxa sal fiirinaynaa Zubeer xataa qaybtoo sameynaya waa cajiib asagana jilitaankiisa waa heer saro marka qaybta oo Habboon oo ku diray Jamaal waa cajiib qaybta fadhiga ay ku jilayaan ayagana waa cajiib soo ugu diraya wajigada quruxda oo imaaday waxa fikraysaa marka maama amran waxay sameysay ila ma ficno laakiin ani eeda ayada ma saarayo eedo dhan waxaan saarayaa Jamaal qofa jeclaatay oo xiriir u idin dhex maray aad ugu diraa waxay ahayd dhankiisa difaac inuu ka adkeeyo mas'uuliyadda oo dhan waa asaga جمال خلط ملهم إذا أمرا أنا به يلدلت وحكلا دي لقى صوت حتى سوى النمي إلى اللي كرتي هذا خلطنا ويسيح كرتي محي وقصبي أنا أروس الديار وأهم مركي أروس إنه وقصبه ayada ilaa hadda ma ogola macna كدنبيه والدين dirdirtaan kan ma ku socdo كان هدي وأركان wax ka bedeli karaan of course way ka bedelayaan sida Jamaal laga زبير ستاب Way ku ورنا hanaaw- كل شيء هذا نوكو علنا جمال خلط ملهن خلطك أنا له أنا فرحتي سكو عياري ninkan هذا كان مركل هاي qaybtiisa الإيمان aad ugu بليز soo baxay ninkan qaybtiisa waa banaanka ku dhacday